tartankan goboladu waa tartan qiimo weyn ugu fadhiya waa tartan isboortiga deegaanka kor u qaadaya oo loo baahan yahay la dhiirigeliyo haddii la yahay hogaamin iyo haddii la yahay shacabkaba waxaa xusid mudan in shirweynaha dhalinyarada heer caalami ah in deegaankan lagu qabtay 2 sano ka hor oo xafiisku uu qaybta ugu muhiimsan lahaa dhalinyaro ka kala timid daafaha adduunka wacyigelin baan u sameynaa dhalinyarada joogta oo laga wacyigelinayo waxyaabaha ayaga noloshooda caafimaadkooda khatar gelinaya ama lidku xaruntan dhalinyarta wallahi wax badan baan ka faa'iidnay inama ahaan habla ahaan aad bay noo anfacday dhalinyaradu waa lafdhabarta bulshada waana cudud ay ummadu ku faanto isla markaana ay ku tiirsan tahay rajada mustaqbalka ay ummad hiigsanayso taasi oo inuu waddan horumar gaadho inta badan lagaga qiyaas qaadan karo kolba heerka cududda dhalinyarada waxbaratay ee uu waddankaasi leeyahay waana sababta keentay in ka dal ahaan iyo deegaanka soomaalidaba sannadihii lasoo dhaafay ay dawladdu fiiro gaar ah siisay dhanka horumarinta dhalinyarada iyada oo la dejiyey qorshayaal iyo jihooyin dhigaya sidii dhalinyarada looga dhisi lahaa dhinac walba loogana qayb gelin lahaa arrimaha dhaqaandhaqaale iyo arrimaha bulshada maadaama ay dhalinyartu tahay jiilka mustaqbalka ee waddanka tartankan goboladu waa tartan qiimo weyn ugu fadhiya deegaankeenna waa tartan isboortiga deegaanka kor u qaadaya oo loo baahan yahay la dhiirigeliyo haddii la yahay hogaamin iyo haddii la yahay shacabkaba waxaan markaa ugu baaqayaa culmaaudiinka odayaasha dhalinyarta ganacsatada inay qayb ka noqdaan horumarinta isboortiga maadaama marka ay ka hadlayaan dhalinyarada ay yidhaahdaan dhalinyarada fursado shaqo ha loo abuuro dhalinyarada balwaddii iyo waxyaalaha xun ha laga ilaaliyo mid ka mida aaladaha la adeegsan karo maadaamuu isboortiga yahay in culmaaudiinka iyo odayaasha iyo ganacsatadu ay dhaqaale iyo talo iyo garab istaag ay muujiyaan baa laga rabaa isbedelka ka hor waxaa jiri jiray hal tartan oo lagu qaban jiray gobolada iyo magaalooyinka lagu qaban jiray marka sanadkiina hal mar baa la qaban jiray marka isbedelka kadib waxaan soo kordhinay 2 tartan oo kale waxaan ka dhignay sanad kasta waxaa la qabtaa 3 tartan oo kala duwan oo heer deegaan saddexda tartan waxaa ka mid ah kubadda cagta ee gobolada 12 gobol oo kubadda cagta loo qabto kaasoo tartanka ugu weyn ee xafiisku heer deegaan gacanta ku hayo isla markaana ay sanad walba ka soo qayb galaan 12 gobol iyada oo dhalinyarada loogu talagalay inay meelo kala duwan ka yimaadaan gobollo kala duwan ka yimaadaan dhaqankooda iyo fikirkooda iyo ay isku keenaan meesha iyo xirfadooda taasina ay suurto geliso in ay isku bartaan isku dhaxgalaan caafimaadkooda ku ilaaliyaan isla markaana skillkooda iyo xirfadooda ku soo bandhigaan sanadadan waxaad arkayseen oo soo taraya in sanadka ka dambeeya ay dhaqamadii isboortiga deegaankeenu wax badan iska bedelayaan isla markaana la fahmayo ujeedada loogu taglay tartanku inuu yahay in la isku barto in dhalinyaradu ay entertainment ka helaan in skillkooda iyo xirfadooda ku soo bandhigaan talentigoodana ama xirfada ay hibada u leeyihiin inay soo bandhigaan oo uga faa'iideeyaan kuwa kale marka xamaasada iyo xiisaha uu leeyahayna waxaad ka garan kartaa sanadba ka dambaysa isbedelka ku soo kordhaya ama ku soo darmaya marka taas waa tan ugu talagalnay ujeedada laga leeyahay in lagu jiheeyo dhalinyarada isla markaana kor loogu qaado ciyaaraha iyo isboortiga kaalin weyn ay ku leedahay in goboladu ayagu qayb ka noqdaan iyo deegaanku saan sheegay xafiisku uu dhaadhacsan yahay laamiisa kala duwan heer gobol heer degmo iyo heer qabale buu leeyahay marka in bulshada qaybaheeda kala duwan ee dhalinyarada ka sugan deegaankeena baaxadda leh in la isku keeno hal gooba isla markaana kor loogu qaado isboortiga iyo xamaasadiisa xiisihiisana kor loo qaado taas waxay qayb ka tahay horumarinta lagu horumarinayo isboortiga si guud ee deegaanka
xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladdeegaanka Soomaalida oo aasaasan meelmarinta jihooyinkaasi iyo istiraatiijiyadaasi ayaa waxa uu xafiisku leeyahay isla markaana uu aasaasan yahay ujeedooyin kala ah ka qaybgelinta iyo kor u qaadista ka faa'iidaysiga dhalinyarada ee dhanka siyaasadda, arrimaha bulshada iyo horumarka, ka qaybgelinta iyo kor u qaadista ka qaybgalka dhalinyarada ee dhanka ciyaaraha kala duwan. hawlaha iyo shaqooyinka tiirasho ah xafiiskan ayaana ah in dhalinyarada dhinac walba laga dhiso oo kor loo qaado wacyigooda si dhalinyaradu ay u noqdaan kuwa doorka kaga aadan ka soo baxa oo ka dhabeeya hiigsiga wanaagsan ee mustaqbalka deegaanka, iyada oo sidoo kalena la xoojinayo tartamada iyo ciyaaraha kala duwan ee dhalinyarada si dhalinyarada looga dhiso jidh ahaan, maskax ahaan iyo caafimaad ahaanba una noqdaan kuwa ciyaaraha kala duwan kula tartama caalamka intiisa kale. qaybta dhalinyarada kaabayaasha lagu horumarinayo dhalinyarada waxaa ka mid ah in xarumo dhalinyaro la dhiso laga hirgeliyo deegaanka. si guud deegaankeena ilaa 67 xarumo dhalinyaro baa ku yaala, inkastoo ay caqabado ku gadaaman ay jiraan oo sida in qalabeyntooda oo kale in la qalabeeyo la gaarsiiyo dhammaan, maadaama ka fariishka uu ballaaran yahay caqabado ka jira way jiraan, laakiin sida design-ka ama qorshaha loogu talagalay uu yahay in xarumaha dhalinyarada laga helo adeeg dhammaystiran oo dhalinyarada uu siiyo. adeegga waxaa ka mid ah xarumaha ICT-ga ee computerka lagu barto, goob library ah oo ay ku akhristaan dhalinyaradu xilliyada ay firaaqada haystaan, goob loo sameeyo la suurtageliya inay xilliyada iskuulka ayna dhiganayeen oo kale inay meelaha ay wax ku akhrisan lahaayeen in looga sameeyo, iyo goobo fagaarayaal entertainment ah oo loogu talagalay in dhalinyaradu entertainment ahaan u isticmaalaan oo laga helo facility kala duwan sidaan sheegay, walow dhaqaaluhuna saamixin. xarumaha waxaa loogu talagalay in laga helo garoomo yaryar oo mini stadiums, kuwa basketballka, kuwa volleyballka, kuwa kubadda cagta iyo table tennis bashan leeyahay kubadda gacanta lagu ciyaaro, kubadda kolayga, iyo almost entertainmentyada kala duwan in laga fuliyo xarumaha dhalinyarada. marka in xarunta dhalinyarada haddii laga helo adeegyada dhammayska tiran, qofka dhalinyarada xilliga uu waxbarashadiisa ka soo baxo waxa uu suurtagelaysa inuu helo meel uu computer ku barto ama ICT skill uu ku barto, inuu goobtii wax ku akhrisanaya ka helo. waxaa jira 67 xarumood oo xarumaha dhalinyarada la yiraahdo oo deegaanka ku fidsan, oo deegaanku degmooyinka iyo gobollada iyo magaalooyinka qaarkood ku yaala, oo dhalinyaradu si gooni ah adeegyo gooni ah siiya. tusaale ahaan mid hadda aan magaalada Jigjiga xarunta waa xarun muhiim ah oo dhalinyarada lagu kobciyo garaadkooda iyo aqoontooda lagu kordhiyaa. waxaan sameynaa oo la qabta aan sameynaa oo xarunta lagu sameeyaa matalajiyo kale ugu yaraan dhalinyaro sanadkii waxaa ka qalin jabiya oo ICT-ga lagu baraa dhalinyaro gaaraysa ugu yaraan 700 ilaa 800. dhalinyaradaas oo 2 semester loo qaybiyo, qolo kasta 6 bilood baa la baraa ICT-ga. macallimiin baan u heergaraynay, hoolal iyo kombiyuutarro iyo kuraas wax lagu barto la dhigay. macallimiin baa loo heergaray oo ka shaqaysa, internetkii baa loo geliyay. barnaamijkaas si fiican buu u socdaa. marka 6 bilood ba qayb qalin jabiya. hadda maalinka wax yar ka hor qayb badan baa qalin jabiyay, 360 ilaa 400 bay ahaayeen kuwan dambe, ilaa 400 oo dhalinyaro. waa dhalinyaro danyara oo da'yara oo aan awoodi karin inay matala shaqada inay tacliintaas kale ay helaan. sidoo kale waxaa hawlaha sanadihii la soo dhaafay dhanka dawladda iyo qaybaha gaarka ahba xoogga la saaray ka mid ah dhanka horumarinta kaabayaasha ciyaaraha oo ay ugu horreeyaan garoomadu. waxa tiir weyn ah kaabayaasha dhaqaalaha ee dhinaca isboortiga ama sport facility waxa la yiraahdo, oo xarumihii iyo goobihii isboortiga lagu sameyn lahaa la'aantoodna ayna suurtagelin tartanada iyo tababarada la qabto. in uu xafiisku
muddooyinkii u dambeeyey ka howlgalay horumarinta kaabayaasha isboortiga oo ay ka midka yihiin garoomadaas oo laba u qaybsama kuwa ay dowladdu maalgeliso iyo kuwa ay bulshadu maalgeliso. Waxaa xusid mudan in kuwa ay bulshadu maalgeliso ay deegaankeena uu dalka oo dhan hormuud u yahay, isla markaana laga fuliyey caasimadeena deegaanka iyo meelo kala duwan oo ka jira dhammaan gobollada iyo magaalooyinka oo dhan. Marka si guud facility-ga guud ahaan dhinaca isboortiga ee horumarinta garoomada kuwaas waa kuwa maalgashiga bulshadu ay ku samaysay. kuwa kale waxaa jira iyaguna ay dowladdu maalgeliso oo xafiiska dhalinyarada ciyaaruhu uu maalgeliyey iyo xukuumaddu. waxaa ka mid ah garoonka maamulka magaalada Qabri Dahar, garoonka maamulka magaalada Goday, garoonka maamulka magaalada Dhagaxbuur, Sport Academy-ga ka socda dhismihiisu magaalada Qabri Bayax, iyo xarunta dhalinyarada ee hadda dhamaystirkeedu dhamaaday ee magaalada Qabri Bayax. waxaa jira tartamo yaryar oo ma garanaysaa ka duwan gashan heer dal, iyadana waa mid aan soo kordhinay oo sida ma garanaysaa volleyball oo kale aan active ahayn, hadda waa mid shaqeeyo weeyaan. ciyaaraha athletics-ka ee orodada oo kale waa mid maanta yacni la dhihi karo deegaanka Soomaalida kaalin muhiim ah ayuu kaga jiraa heer dal. sidoo kale annaga inta aan joognay hadda waxaa soo kordhay isku xirkii ma garanaysaa geeska Soomaalida aan dariska nahay sida Somaliland oo kale, Soomaaliya, Kenya, Djibouti, in ma garanaysaa isku xirka dhinaca isboortiga uu mid aad u sareeyo oo noqday. dhalinyartii deegaankana maanta ay mid ay ka faa'iideysteen oo noqdeen. waxaad arkaysaa tusaale ahaan dhalinyar deegaanka u dhalatay oo maanta kasoo ciyaaraya horyaalada dalka Soomaaliya ama Somaliland ama Kenya ama Djibouti ka ciyaaray. taasna waa hadda isbedelka kadib iyo dadaaladii aan gelinay weeyaan. kubaca uu ku socdo maaragtay isboortiga ka degmahaan markaan soo qaato isboortiga wax maaragtay wuxuu ku socdaa xawaare aad maanta u sareeyo ku socdaa. ha noqoto kubadda cagta, ha noqoto volleyballka, ha noqdo orodka, ha noqdo sanad wali maaragtay ilaa 4-5 league baa maaragtay degmada inta ba ka qabsoomo. isbedelka kadib waxaan dhihi karaa ka degmahaan fituhaan isboortiga xawaare aad u dheeray baa ku socdaa. sanad walba maaragtay waxaa lagu qabtaa degmo ka degma maaragtay 7 degmo gobolka sanad walba maaragtay waa lagu qabtaa. degmadii maaragtay ku guuleysatana si toos waxay u tagtaa maaragtay deegaanka. taa waxay dhalinaysaa marka jaceylka loo qabo maaragtay isboortiga intuu la egyahay isbedelka kadib intuu gaaray. dhalinyarada hadda maaragtay kulay isboortiga saan ognahay waa caafimaad iyo isdhexgalka bulshada weeyaan. ka jir ahaan dhalinyarada iyo caafimaad ahaan aad buu maaragtay ugu wanaagsan yahay, waayo waxay ka hortagaysaa maaragtay mukhaadaraadka, waxyaabaha maaragtay dhaqamada xunxun maaragtay isboortiga ka hortagaa. dhinaca horumarinta ciyaarahana ka faa'iideysiga iyo kor u qaadida dhalinyarada dhinaca ciyaaraha in tartamada heer dal ay dhalinyaradu ka qayb galaan, isla markaana ay natiijooyin ka soo hooyaan. ka qaybgalka iyo kor u qaadida tartamada heer deegaan oo heer deegaan xafiiska dhinaca ciyaaruhu u taagan yahay inuu tartanno kala duwan dhalinyarada loo qabto iyadoo qaybaha kala duwan ee isboortiga kor loogu qaadayo. dhinaca kale magaalooyinka iyo gobollada deegaanka uu ka kooban yahay in kor loo qaado dhinaca horumarinta dhalinyarada isboortiga, iyadana gobol kasta in laga hirgeliyo dhalinyarada iyo kor u qaadida isboortiga, isla markaana ay qayb muhiim ah ka qaataan maadaama ay dhalinyaradu joogaan gobollada iyo deegaanka oo dhan ilaa degmo ilaa qabale. marka xafiiska structure-kiisu uu dhaadhacsan yahay ilaa heer qabale, heer degmo, heer maamul magaalo iyo heer gobol, kuwaasoo marar badan oo kala duwana tartanada loogu talagalay dhalinyarada heer deegaan xafiisku uu ka qabto nidaamyada heerarka kala duwan. dhinaca ka qaybgalka ma garanaysaa tartamada kala duwan oo nooc walba leh, hadday football noqoto, hadday noqoto ma garanaysaa ciyaaraha fududa, iyo hadday noqoto ciyaaraha kala duwan oo yacni ka duwan gashan oo deegaanka ma garanaysaa loogu tartamayo, inaan kor u qaadnay oo maanta xiriirka federaalka ay noqotay mid qorshe siman kor ilaa hoos deegaanada aan la shaqeyno.
sidoo kale isbeddelka kadib waxaa soo kordhay iyadana laftirkeeda in xiriirka aan la leenahay deegaanada dariska aan nahay, tusaale ahaan Harriga, Dirdhabo kale, in ma garanaysaa iyadana xiriirkoodii aan hagaajinay. isboortigan xukuumaddu waxay ku soo biirisay oo kale iyaga intuu xukuumaddii dambe ay joogtay championkan degmooyinka jigjiga la tegi karo oo kale ma jirin hadda ka hor, hadda laakiin way jirtaa. waxyaabo badan oo kalena wuu jira. waxaan aaminsanahay haddii sidan ka sii socotana in qabaleyaasha koobka tartamada laga qabto championkooda la qaadi doono, heer deegaan la geyn doono, Premier League iyo Beerawi League-na aan bilaaban doono. isboortigan aad buu xawli ugu kacaya. haddii sidan lagu sii wadana waxyaabo badan baan bedeli doonaa ilaa aan xulka Itoobiya qarankan ka soo muuqano. tartanka labaad waxa weeye xafiisku uu soo kordhiyey tartanka championshipka degmooyinka ama horyaalada ee degmooyinka oo sanadkii saddexaad si xiriir ah loo qabtay, iyadoo ay xusid mudan tahay hadda ka hor inaanay jirin tartankani. gobol kastana markuu qabsado tartanka degmooyinkiisa, degmada horyaalka ee championkii mayna jiri jirin meel ay tagto ama ay timaado, laakiin hadda waxaan suurtagelinay in ay ku hirtaan oo ay yoolkoodii iyo hadafkooda ka dhigaan inay heer deegaan yimaadaan. degmo kastoo koobka qaadana halkan aan tartan ugu qabanno. 11 degmo ee horyaalka u noqda gobolkoodana in halkan iskugu keenno, iyaguna isku bartaan. taasi waxay soo kordhisay in degmooyin aan weligood wada ciyaarin ama meel aan iskugu iman inay iskugu yimaadaan, skillkoodii xirfadooda ku soo bandhigaan, isla markaana ay koobka ay ku qaadaan. marka taasi waa waxyaalaha isbeddelka lagu soo kordhiyey tartamada. tartankii kale waxaa jira isaguna jaamacadaha iyo maamul magaalooyinka oo labada jaamacadood deegaan ku yaala iyo 6 maamul magaalooyinna loo qabto, kaas oo isaguna ujeedadiisu ay tahay da'yarta ugu badan ee ku nool magaalooyinkeena iyo jaamacadaha laftarkooda ku xireysan inay iyaguna ku tartamaan heer deegaan, isla markaana cidda championka noqota lagu abaalmariyo. marka tartankaasina waa ka labaad ee xafiisku soo kordhiyey. iyo kii gobolada oo 11 gobol deegaanku ka kooban yahay iskugu yimaadaan oo tartanka ugu weyn ah sanad walbana 3 tartan si joogto ah loo qabto. waxyaalaha la soo kordhiyay waxaa xusid mudan oo iyaguna garab socda in orodada 11 gobol iyo magaalooyinka iyo degmooyinka tartanka 3 tartan markii la qabanayo inay barbar socdaan tartanada kale ciyaaraha fudud. Amada yararka ee dadka shacabka ay leeyihiin, taas waa ma garanaysaa deegaankanaga aad baa loogu amaanay. annaga ka ma garanaysaa mas'uuliyad ahaana waan ku amaanaynaa dadka ganacsatada dhalinyarta ah ee shaqo abuurka ka samaysatay in ma garanaysaa ay uga faa'iideeyaan dhalinyarta kaliya kama faa'iideysanaysa caafimaad ahaan dhalinyarta cuslaatay oo kale iyaga laftirkooda. garoomo badan magaalada Jigjiga iyo dhammaan degmooyinka ilaa iyo heer gobol laga wada sameeyay oo wax ma garanaysaa isbeddel fiican oo initiative-ka hadda hindisaha dalka ka socda oo kale. taasna run ahaantii waxaan uga mahadnaqaynaa annaga ka xafiis ahaan. waa mid kaliya aad federaalka ay maanta ku dayasho way mudan yihiin ay noogu bogaadiyaan. ma jirin garoon roog oo dhalinyartu ku training karayaan oo ku ciyaaraan oo xirfadooda ku soo bandhigaan. macala ciyaalka yararka waxa weeyaan aan hadda ka hor aan fursad u helin inay roog ay ku ciyaaraan yaa hadda fursad u helay oo roogga ku ciyaara mar walba. wallahi wax weyn buu ka bedelay baan aaminsanahay dhanka isboortiga degmada Hargeysa garoonka. dhinaca ka qaybgalka arrimaha bulshada, dhallinyaradu waxa ay door muhiim ah ka geystaan shaqooyin lafdhabar u ah jiritaanka ummadda oo aan la cabiri karin, kuwaas oo ay ugu horreeyaan howlaha tabarucaadka oo ka kooban dhammaanba adeegyada aasaasiga ah ee ay bulshadu u baahan tahay. waxaa loogu talagalay in dhallinyaradu ay ka qayb qaataan dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada oo door muhiim ah ay ka qaataan. dhallinyaradu sidaan ognahay 75% lafdhabarta bulshada inay yihiin, isla markaana xooga dihan in laga faa'iideysto loogu talagalay sida
positive-kaana looga faa'iidaysto. haddaan dhalinyarada sida positive-ka looga faa'iidaysanna dhibaatooyin badan baa ka dhici kara. marka qorshaha loogu talagalay in dhalinyarada lagu horumariyo waxaa ka mid ah in looga faa'iideeyo aqoontooda, xoogooda iyo khibradooda in looga faa'iideeyo bulshada, isla markaana waaxda samafalka iyo tabarucaadka oo loogu talagalay inay ka shaqeyso hawlaha tabarucaadka bilaha xagaaga iyo xilliyada kaleba. hadday noqoto adeega dhiig shubista oo kale inay kaalinta ugu muhiimsan waxaa ka qaata dhalinyarada. hadday noqoto hawlaha nadaafadda, haddii ay noqoto hawlaha amniga oo amniga deegaanka oo dhan wacyigelin inay ka sameeyaan dhalinyaradu, ay qaybaha kala duwan ee bulshada maadaama ay dhalinyaradu lafdhabarta ugu muhiimsan tahay ayna joogaanna gobollada iyo degmooyinka oo dhan, in hawlaha baraarujinta ka qayb qaadashada iyo ilaalinta amniga inay kaalinta koowaad ka dhigaan, ayna ka shaqeeyaan. xilliyada tabarucaadka bilaa xagaagana hawlaha ugu waaweyn ay qabtaan ay ka mid tahay ilaalinta amniga iyo wacyigelinta dhalinyarada. waxaa kale oo ka mid ah inay dhalinyaradu ka shaqeeyaan ilaalinta deegaanka iyo dhirbeerista ama green legacy-ga la yiraahdo, inay ka shaqeeyaan oo dhirbeerista xilliyada guga oo kale inay geedaha ugu badan dhalinyaradu beeraan. marka si guud barnaamijka tabarucaadku ilaa 13 activity buu leeyahay. 13ka activity oo xafiisku u qorsheeyo isla markaana bahwadaagta qaybaha kala duwan ee xafiisyada ama institutionada u qaabilsan oo kala shaqeeyo. arrimaha tabarucaadka sida ogsoontihiin bilaa bilood ee xagaaga ee jaamacaduhu iyo iskuulladu ay xiran yihiin ayaan qabanaa. waxaana loogu talagalay oo ujeedadu tahay in la caawiyo dadka baahiyaha qaba, dhalinyaraduna maskaxdooda iyo muruqooda ay ku tabarucaan, dadkooda ay ugu tabarucaan. hadday noqon lahayd xagga waxbarashada oo galaasa bixiyaan, iyo hadday noqon lahayd xagga nadaafadda iyo sanitation-ka, iyo hadday noqon lahayd xagga caafimaadka, iyo hadday noqon lahayd xagga nabadgelyada, dhirbeerista, waxaasoo dhan ayay ka qayb qaataan. marka labada bilood guud ahaan gobolka deegaanka waan gaynaa dhammaan. marka hawlahaasi waa hawlo joogta aan aad u qabanay weeye. waxyaabo aad u fara badan oo aad u wanaagsanna waa laga sameeyey runtii. si xaaladaha arrimaha dhaqandhaqaale iyo siyaasadeed ee taagan ay ula jaan qaadaan dhallinyaradu ayaa waxaa dhallinyarada loo diyaariyaa fagaarayaal waaweyn oo laga qaybgeliyo dhallinyarada, kuwaas oo lagu soo bandhigo jihooyinka iyo qorshayaasha uu dalku wajahayo. waxaa xusid mudan in shirweynaha dhalinyarada ee heer caalami ah in deegaankan lagu qabtay 2 sano ka hor oo xafiisku uu qaybta ugu muhiimsan lahaa dhalinyaro ka kala timid daafaha adduunka iyo wadamada jaarka iyo deegaanka guud ahaan ka kala yimiday, in doodo fagaarayaal lagu qabtay oo 3 sho ay ka socotay xarunteena deegaanka ee magaalada Jigjiga, isla markaana caqabadaha iyo fursadaha ka jira dhinaca dhalinyarada lagu horumarinayo in lagu lafaguray ama lagu falanqeeyay. doodahana ay ka soo baxeen natiijooyin wanaagsan oo kor u qaadaya wacyiga iyo fahanka dhalinyarada ee dhinaca xirfadooda iyo hal-abuurka ganacsiga. taasina ay wax weyn ka tari doonto haddii la sii joogteeyo. waxaa xusid mudan in hadda xafiisku isagoo kaashanaya golaha dhalinyarada uu qabanqaabadiisa ku jiro shirweyne labaad oo kii oo kala isla markaana deegaanka oo dhan dhalinyarada ay ka kala yimaadaan, isla markaana dhalinyarada hibada u leh hal-abuurka ganacsiga iyo kor u qaadida noloshooda in lagu soo bandhigo, loogana faa'iideeyo kuwa kale ee dhalinyarada ee faham buuxaan ka haysanin, halkaana laga dhaxlo natiijooyin waaweyn oo dhalinyarada horumarintooda kor u qaaday. si dhalinyaradu ay u helaan xarumo ay ku madadaashaan oo u gaar ah, isla markaana ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin, ayaa waxaa dadaal laga sameeyey goobaha ama xarumaha dhalinyarada oo ka aasaasan meelo badan oo deegaanka ah. wacyigelin baan u sameynaa dhalinyarada joogta oo laga wacyigelinayo waxyaabaha ayaga noloshooda, caafimaadkooda khatar gelinaya ama lidku
waxaa ka mid ah oo waxaan la wacyigeliyaa mukhadaraadka waxyaabaha mukhadaraadka waxaa la wacyigeliyaa maartay wax la yiraahdo tarhiibka iyo magafaha waxyaabahaas oo dhan ka wacyigelinaa arrintaas waa arrin joogto ah oo markaas sanad walba aan qabanno weeyaan si joogto ah u sameynaa arrintaas heer deegaan iyo ilaa waxaan u dhacnaa mararka qaarkood gobollada iyo maamulooyinkan geynaa arrintaas waa arrin joogto ah aan qabanno oo ay tahay inay aan rabno inay wax badan wax ka bedelaan xaaladda dhalinyarada iyo heer deegaan ardayda magaalada Jigjiga gaar ahaan xaruntan dhalinyarta faculty-ga ITC-ga ka barata run ahaantii maalinkan imaaday ani imika igu horeysay laakiin inaan in badan ka faa'iideysto way qalbi niyadeeda way ku jirtay waan ku hamiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu suurtageliyay alxamdulillah rabbil caalamiin mar labaad macallimiinta waxna soo bara ayaa aad mahad labaad iska leh wallahi wax badan baan ka faa'iidnay inama ahaan habla ahaan aad bay noo anfacday iyada oo lala kaashanayo bahwadaagta ayaa waxa uu xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha dadaal ka sameeyay sidii wax looga qaban lahaa ama la'aanta oo dhalinyaradu ay shaqo abuur u heli lahayd dadaaladaasi bilowga ah ee ka xukuumad ahaan iyo ka xafiis ahaanba la wado ayaa waxaa laga maarmaan ah in iyaguna ay doorkooda ka qaataan bahwadaagta qaybaha gaarka ah ee private sector-ka maalqabeennada oo iyaguna door ballaadhan ka geysan kara gaar ahaan dhanka horumarinta ciyaaraha kala duwan si loo meermariyo qorshaha ah in dhalinyarada laga dhiso dhinac walba taas oo gundhigna u noqon karta hiigsiga mustaqbalka wanaagsan ee deegaanka